laba cadow baa jira oo aad iyo aad u culculus oo haddii aan alla ka sakow gabar Soomaaliyeed loo helin aan hubo inay adag tahay inaan ka samata baxo labada cadow mid waxa weeye waa ka abaarta ilaahay baa keenay gurmashada iyo in la isu naxariisto iyo in wax la isa siiyo iyo in darisku isa saacido waxa asal u ah gabadha Soomaaliyeed sidaa darteed dadka Soomaaliyeed naxariis bay u baahan yihiin inay isu naxariistaan naxariiska santarkeeda iyo meesha ay fadhidana waa gabadha Soomaaliyeed waxaa la rabaa gabadha Soomaaliyeed maanta naxariistii lagu yaqiinay ay shacabkeeda iyo walaalaheed u naxariisan jirtay maanta laga rabaa maanta gabdhaha Soomaaliyeed aan ka rabaa in ay dadkooda u gurmadaan oo ay cunto gaarsiiyaan iyo biyo ayaa laga rabaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan haddii dadka caalamka inoo soo gurmaday ay leeyihiin war ha loo soo gurmado way dhimanayaan innagu waan isu gurman karnaa aan isu gurman waxaan rabnaa inaan isu gurman suurtagal ma tahay muslimiin baan nahay boqolkiiba boqol baan muslimiin nahay laakiin waxaad ogaataa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim kamathali ljasadi alwaaxid ida ishtakaa minhu cud tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahri walxuma yacni qofka muslimka ah la yidhi muslim xataa Soomaali uu ka weyn yahay qofka muslimka ah qofka kale wuxuu u yahay waxay marka la isu fiiriyo waa hal jid oo kale jidkaaga oo kale weeye hadday far ka xanuunsato habeenkaa inta kale way soo jeedaysaa farta kaliya xanuunsanay ishu ay iska seexato suurtagal ma waxaan qabaa oo ila tahay dadka Soomaaliyeed sidan aan ku jirnaa maalin horaan sheegay anigu aqliga weeyna fooraraayo waa inuu aqligu toosaa waa inaan lugaha dhulka hoos u leexnaa madaxuna kor istaaga way inta marka laga tago cadowga labaad waa kan isloognahay hadda laga hadlaayay oo nimanka la baxay shabaab la yiraahdo way iyo wixii la halmaada waxaan nahay dad muslimiin aan nahay sideedaba maxaan ku qanacnaa shabaab inay yihiin shayaadiin oo ay ilmihii jahannamo yihiin oo xadabu jahannamo yihiin oo shayaadiin yihiin oo ay waajib tahay in lagu jihaado oo lala diriro ma daliil baan u baahannahay midka shalay hiiraan waxaan aragteen ka sameynayay ma daliil u baahan in lala diriro ma in kitaabka iyo quraanka wax looga raadiyo u baahan yahay guushi way bilaabatay guushu inay bilaabatayna waxaan ka garan meeshaan ka soo galayay raadadkii guusha ku yaalay gabdha Soomaaliyeed oo buskidkii iyo muqmadii iyo biyihii diyaariyay baan ku soo maray meesha oo ciidamadoodu daa waxaan hubaa inay bilaabatay mar hadday gabdhaha Soomaaliyeed bilaabaan waa bilaabatay guushii iyo in laga adkaado cadowga waa bilaabatay meel aan dib ugu laabanno mana ka laabanayno waa in la iska celiyo waxaan halkan runtii uga hambalyeynaya marka koobaad waa u tacsiinaya guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ay nimankan dhibaatada ku hayaan gaar ahaan ilmihii iyo hooyooyinkii iyo walaalihii ay ku xasuuqeen gobolka Hiiraan iyo meelo ka mid ah galguduud waxaan leeyahay inta dhimatay waa shuhado Allahu naxariisto inta dhimat dhaawacana Allahu booga dhayo waxaan laakiin ugu hambalyeynaya sida ay uga jawaabeen oo ilaa hadda ay uga jawaabayaan shacabka Soomaaliyeed beelaha Soomaaliyeed wiilasha Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed ayaga oo kaashanaya oo runtii weheshanaya qaybaha kala duwan ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waad mahadsantihiin jawaabaha ay bixinayaan iyo sida ay soo celinayaan runtii way ku mahadsan yihiin xukuumadda iyo dawladdu way garab taagan tahay jawaabaheedana way arkeen haddana way sii arki doonaan wayna sii garab taagnaanayaan ilaahay idinkiis saakadan hadda waxaan ugu hambalyeynayaa taliya xijaar waa joogaa inay duulaan qaadeen
oo meelo adag oo ay fadhin jireen oo ay Basra ka mid tahay ay ka xoreeyeen oo ay fogeeyeen waliba eryeen insha Allah wayna sii daba socon doonaan waana ugu hambalyeynaya way ku mahadsanyihiin inta marka laga tago guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo gobol kasta ay ku nool yihiin waxaan soo jeedinayaa gaar ahaan magaalada Muqdisho kuwa ku nool ka yihiin walaalayaal waxaan galay dagaal baan ku jirnaa marka dagaal ku jirtana cadowga waa xanuujin waa la xanuujiyaa cadowga marka dagaal ku jirto markuu xanuunsado waxaa lagu yaqaanaa reaction-kiisa iyo jawaabta uu bixiyo hadday noqoto midna filcaariya oo waxa hadda dhacayo aragteen macnaheedu cadowgu uu dhintay waa daciif ha ka harin waxaan rabaa inaan halkan ka sheego mar haddaynu dagaal galloon goosanay dagaal mar haddii aan cadowga xanuujinay waxbaa inaga soo gaaraya dadka Soomaaliyeed waa inay ogaadaan cadowgu jawaabuu bixinayaa xanuunaa imaanaya xanuunaa waa inaan ku talagalnaa qur'aanku ilaahay ku sheegay in takunu ta'lamuuna fa innahum ya'lamuuna kama ta'lamuun haddii aad xanuunsanaysaan saxaabada saasaa lagu sheegay haddaad xanuunsanaysaan oo dagaalku aad ku dhimateen ood ku dhaawacanteen waxaad ogaataan ayaguna way xanuunsanayaan sidaas oo kale way ku dhimanayaan way ku dhaawacmayaan laakiin maxaad dheertiin watarjuuna min allahi maa laa yarjuun ilaahay baad ka rajaynaysaan idinku waxayna ayagu ka rajaynayn maxaa jira ayagu waa daalimiin ilaahay bay ka soo horjeedaan masaajidka kii ku tukanayay dilayaan gabadha Soomaaliyeed bay dilayaan canuga Soomaaliyeed bay dilayaan dawladnimaday hor taagan yihiin noloshay hor taagan yihiin Soomaaliya inuu cadow haystay go'aan ku gaareen oo isa ahaato waa la soo diray ma aha wax oo haw maleynaya iska soo baxay ma aha sidaa darteed dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay haddii ay qarxiyaan haddii ay toogtaan hadday dilaan waxaad dagaal baad ku jirtaan cadow baad la dagaalamaysaan waa xanuun ka mid ah xanuunada idinka soo gaaraya waana laga gudbi doonaa markaad jabisaan haddii ilaahay waana la jabinaysaa